بوريا ويجارك بالشمال لا بوريا أبغى ما تصبر waalidiintan Soomaaliyeed oo ka cabanaya jawaab la'aanta ka haysata dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii caruurtooda oo tababar loogu qaaday dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Eritrea laga waayay hadal ayaa maanta waxay isugu soo baxeen isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho hooyooyinkan oo wajiyadooda laga dheehanay murugo ayaa waxa ay ka dalbadeen dawladda federaalka Soomaaliya in jawaab cad ay ka bixiyaan halka ay ku dambeeyaan caruurtaasi Soomaaliyeed nolol iyo geeri waa kuwan qaar ka mid ah waalidiintan oo la hadlay warbaahinta madan dhabarkayga taagan waa arkaysaa waa dhibanayaashii muddo hal sano qaylinayay awlaadii ay dhaleen iyo beerkoodii iyo wandahoodii meel ay ku sheegaan laaway maanta waxa loo sheegay in dalka Eritrea laga kaxayo Ethiopia ay ka dagaalamayaan oo Eritrea ay la dagaalamayaan mudana madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo wax ka arnaa maydkoodii intii noolna waxaan ka rabnaa in ubadkayga noo keenti ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa maasadkii saddexaad aniga shakhsi ahaan aan u diro maamulka Soomaaliyeed waa ila mid waxaan ka codsanaynaa inuu maanta horteena soo istaago hadduu maanta soo istaago waa inuu biri soo istaago maanta asaga codkiisa socda waa inuu caruurteena jawaab ka keena wixii dhintay iyo wixii nool waa ku sabraynaa inuu noo keeno taasoo ka codsanaynaa nabadsanay maqayiin ilmaheena wax cadaalad ma haysano ilmaheena cadaalad darraa ku haysa meesha markii horena waa nala qayaanay qadar baa la geynayaa la yidhi wax la geeyo malab Eritrea ayaa lagu shubay ilmaheeni nolol iyo geeri mid ma hayno ilmaheeni waxaan u rabnaa cadaalad hadday cadaalad jirto ra'iisul wasaaraha ka rabnaa cadaalad inuu ilmaheeni nala soo shiro naaymalo nagala hadlaa rabnaa ilmaheeni nimanka dawladda isku sheegayo oo wadankan u dhaartayo oo 114 ku dhaartayo xaadir soo noqdo meeshaan joogno noogu imaado awlaadayadii noo keena wixii noo keena ana wala daba qabta haday daataan wixii nool baan rabnaa wixii dhintayna noo soo qodaan rabnaa awlaadayadii aan rabnaa nimanka madaxda isku sheegayo ilma dugsi sare jaamacadaha naga maqan yaa rasuulullaahi ana la dhaartay ana madaxda ma tashaa ana wadan ana la jeclaano ciidanka u qornay wixii dhintay waa dhinteen wixii nool ana ku caymiyo ana la qanciyo ana la hadlo yaa rasuulullaahi yaa xabiibullaahi TPLF dadka ka dagaalamay in lagu daray way jirtaa waa xaqiiqa waxa kale jirta oo xaqiiqa xarada lagu tababarayo ciidan ka daatay oo dhowr kuna in ciidanka Eritrea ay ilaalinaya ay waxyeelo weyn u geysteen oo xarada tababarka in lagu laayay ayaa jirta markaas waa xaqiiq laba meelood oo lagu laayay dhalinyarta Soomaalida TPLF ka waa lagu dagaal galo waa la geeyay waxa kale oo la geeyay ciidanka Eritrea tababaraya ciidan aad u badan oo gadooday ayay laayeen waxna dhaawaceen armaajo awlaadayga hadduu islaayo ilmahayna waa la idin cadaa ku dhacay intahay ka dhaceen dhagaxa lagu cadaalowaya miisyaanyaa ku soo korsha saanaan waa oday ma shaqay gabray ma shaqay sabray ma shaqay kiiko igana bari calastiisa iga dishay kiiko oo qoyaan bari calastiisa iga dishay su'aalaha dawla fahma jawla musharaxiintayka inta dabaqatayka ilmaawdayka aragada bilowayka awlaadayda noloka awlaadayda noloka ma tahay ilmihii Eritrea dawlad federaalka u geysaan ay ka qayb galeen dagaalkii Eritrea Tigray arinta ayadana dawladda ilaa hadda cabashooyinkaas iyo warbixinada la soo sheegayo wax jawaab kama bixin waxaan codsanaynaa haddaysan dawladda federaalka arinta ayada jawaab degdeg ah ka bixin oo ilmihii aysan noo keenin in mudaharaad midka ugu weyn uu dhici doono wax wadooyinka dhan aan xiri doono wixii cawaaqib ka yimaadana dawladda mas'uuliyaddeeda ay qaadayso dibadbaxan waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan mas'uuliyiin badan oo wadanka xilal ka soo qabtay oo ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay sheegeen in wiilashaasi la ogaaday inay ka dagaalameen gobolka Tigreega dawladda Itoobiya ay dagaalkaas u adeegsatay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa ugu dambeyn kala ceeriyay wariyaashii shaqada u aaday goobta banaanbaxa uu ka dhacay iyo waalidiinta dhibanayaasha u ah dawladda federaalka Soomaaliya ee wiilashooda ay ka maqan yihiin Ismaaciil Axmed Maxamed telefishinka VOS Muqdisho